أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليه. وبعد، إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. sidaynu wada soonahay ballankeena caawa wuxuu ahaa in aynu dhageysano cashar ku saabsan dareemaqaadaha jirkeena ilaahay tabaaraka wa tacaala tin iyo cidhib uu ku dhammaystiray iyo awoodda rabbi ay ka dhex muuqanaysa. waxaa inooguma marti caawa doctor محمد عبد البوصي جزاه الله خيرا. waxaan uga mahadnaqaynaa sida sharafta leh ee weynoo ajiibay iyadoo inoo soonahay hawsha u taala iyo dadka u kala qalan isbitaalka u yaalla. khayr alla siiye markii aan u sheegay markiiba weyn ajiibay. ilaahay miisaanka xasanaadka ha ugu daro. ujeeddada iyo macnaha aynu ka lahayn inaynu lectureka ku qabanno masaajidka waxaa ka dambeeyey oo aynu doonaynaa inuu masaajidku soo ceshado siyaadadii iyo hoggaanka cilmiga uu ku lahaa caalamka islaamka. dadkii magaca lahaa ee aqoonta lahaa ee diiwaanada waaweyn baab walba ka qoray masaajidkay wax ku barteen. casharka masaajidka lagu dhigan uu ka badan yahay casharka meelaha kale lagu dhigo. in badanna waxay cadowga ku dadaaleen inay kala saaraan masaajidka iyo aqoonta. masaajidka iyo aqoonta wax kala maarmo maaha. nabiyullaahi maxamed salawaatullahi wasalaamu caleyh aqoon-yahanadii uu barbaariyey, fanni walbana uu ku barbaariyey. hadday dagaal tahay waxay ahaayeen saraakiilooda janaraalaha ciidanka hogaamiya. hadday maamul tahay ilaa abaa hureyra ayaa mara saabaa masaajidku wax ku bartay. raggii aqoonta faraha badan lahaa waxaa laga soo saaray masaajidka ka baraka masaajidka taaba. qorsheheenu markaa wuxuu ahaa bal inaynu insha allahu isu soo celino aqoontii iyo gurigii ehelka oo ahaa masaajidka. marka waxaynu go-aansanay inta tafsiirku inoo socdo marba qayb ka mid a aqoonta maadiga ah ragga aqoonta u leh inaynu cilm ku marti qaadno. aqoon-yahanka iyo masaajidkana ay isku xidhmaan. aqoon-yahanka iyo masaajidka inay isku xidhmaan waa muhiim. marka aqoon-yahanku masaajidka ku xidhmo intii u baahana way kusoo xidhmaysaa. inta u baahana way kusoo xidhmaysaa, way ka daba imanayaan. sidaa darteed waxaynu ka fikiray inaynu jaanis siino aqoon-yahanadeenna qof waliba mawduucu yaqaano inaynu ka martino. marka waxaa hadda inoo bilaabay doctor saciid oo habeenkii dhowe ka hadlayay cilmiga manaamaadka iyo sida loo fasiro iyo miisaankiisa. caawana waxaa inoo labaa doctor gabosi jazaa allahu khayran. wuxuuna ka warrami doonaa mawduuca aan idiin soo qadimay. mawduucani waa mawduuc muhiim jiddan ah. ilaahayna tabaaraka wa tacaala wuxuu ballan u qaaday ruuxa aqoon u yeesha nolosha bini-aadamka inuu ilaahay awoodiisa ka dhaxarkay. haddaad aqoon u yeelato cilmiga bini-aadamka noloshiisa iyo organiskiisa, haddaad aqoon u yeelato siduu kuu wado ayuu ilaahay awoodiisa ku dulgeynaya. ilahay baa qur-aankiisa ku yidhi sanuriihim aayaatina fi l-aafaaq wa fii anfusihim xataa yatabayana lahum annahu lxaq. waxaan ballan u qaadayaa ninkii aqoon u yeesha jawguu ku nool yahay ama noloshiisa ninkii aqoon u yeeshay inuu awoodda ilaahay dhab u yaqiinsanaya. intaanu dictoorku gelin hal masalo oo aan kala kulmay nin macallinii ahaa markaan ardayga ka ahaa veterinary semesterkeygii afraad. nin talyaani u ahaa. ninkaa talyaaniga ilaahay u aqoon dahri u ahaa. maadad physiolojiya la yidhahdo loo dhigi jiray. wuxuu ka sheekeynayay
xubnaha dhiigga qaada jidhkeenna waraabiya waa laba qaybood. qayb waa qaybta jidhka ka soo celisa wixii qashina iyo kaarboonkeed, qaybna waa qaybta nafaqada wada ee jidhka u qaybisa baahideeda. qaybtan jidhka u qaybisa waxay toos uga soo baxdaa wadnaha. bombada wadnuhuna waxay awood u leedahay madaxa ilaa ciribta inay waraabin karto. marka dhakhtarku wuxuu markaa ka sheekeynayay xididadan dusha maraya muuqda ee jidhkeena haragga keliya ka sarreeya. wuxuu yidhi waa xididada ka soo noqonaya jidhka ee wada qashinka. xididada halbowlayaasha ee wadnaha toos uga baxa ee jidhka waraabinaya murqaha hoostooda ayay ku gabadaan. murqaheena hoostooday galaan. ma xigmaddaa ku jirta buu yidhi markaa. xigmaddaa ku jirtaa waxa weeyaan haddii xididada wadnaha toos uga soo baxaya bannaanka la dhigi lahaa, haddii makiinad yari ku sabto ama nabar yari kugu dhaco dhiigbax baa loo dhiman lahaa. sababta oo ah dhiigga uu wadnuhu soo saar xoog buu ku socdaa. deedna ma siiyeen fursad inta ay ciidanka gurmadka ee sameeya injirowga intay isu yeedhanayaan ay samaynayaan injirta, fursad may siiyeen xooggaas buu mar walba ku tuuri lahaa inta injirta la sameeyaba. marka qofku intaa dhakhtarba la gaarsiiyey ayuu dhiigbax u dhiman lahaa. laakiin xididada dusha maraya waa xididda dhiigooda soo daaray, wadna soo riixayna ma jiro, ways-aayar bay iska soo socdaan. marka nabar yara ku kaco waxay helayaan fursad ay ku samaystaan injirtii, deedna dhiigu joogsanaya. ninkii intuu dabanada qabsaday talyaaniga ahaa ee aan ilaahay garanay ayuu kelmad talyaaniga cajaa'ib lagu yidhi vedete ragazzi miei, vedete ragazzi miei, vedete come la natura ha pensato tutto. انظروا يا أبنائي، انظروا يا أبنائي كيف فكرت الطبيعة من كل شيء. والأفر سنة بولي سنة الضباعات وحو الله سي فكرتين. وأنك بركو لنا ضبعي نظامك يابك لك إلهي وقلت لك لك لدرسوك لك كي هالسد كيني لهانا هو اسمري مرقه كي لجوء عن دكتوران كسهانا دوشة وسومري يونيكي قال كعضيا فرصبنا أيام كلا وحو كتيري يسمى ضبيعات bay ku fikirtay buu wax walba way ka fikirtay ilaahay ka fikirtay si qofka looga badbaadiyo dhiigbax. marka haddii aad u fiirsato ilaahay farsamadiisa tabaaraka wa tacaala iyo siduu u sii dhigay nidaamka nolosha iyo siduu nolosheena u badbaadiyay yaa qaylaha ku keenay. marka waxaan kusoo dhaweynaya doctoorka oo ka hadli doona bal cajaa'ibaadka ku jira cilmigan oo aqoonta u leeyahay. xaqiiqatan cilmigan waa aqoonta u leeyahay waa xaq علمي انت تقانا فرقت الاسلام وانا علمي واحد ومن اي بيوجيسو سبعين من العالم ولي كريم برشليسا فكواحد كمرت الاخوات الى وذاعته وغيستو ولي الله الى احتسب كسولو دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارتا أنسكوني المساجد وحان إلهي كبريا إن muraadka hadalkaygu uu noqdo miduu isagu raalli ka noqdo baan ilaahay ka baryaa oo dhammaanteen inta dhegaysanaysa iyo intayda jeedinaysaba aan ka helno ajar iyo khayr. caawa layma casumin xanuun hebel ka hadal, xanuun hebel ka hadal, taasaa ii dhib yaraan lahayd. hal xanuunka suuxidda nooga hadal haddii la yara mata, laakiin waxaa la yidhi qaybtan jidhka bini aadamka ka mid ee adigu aad ka shaqaysid iyo isku xirkeeda inay xasuusiso intan hor joogtay intana dhageysanaysaba in ilaah abuuristiisu ay ka soo dhexbaxdo qofku maaragtay oo ku cibro iyo maaragtay ku qaatay magaciisa. waad ogtihiinoo qur-aankeenna waxaa ku badan isagoo dadka ilaahay ku baraarujinaya wa min aayaati waxyaalo badan oo noocaas. ilaahayna wuxuu yidhi قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثل مددا.
haddaan damacno caawa inaan iska dhigno xariif sheegi karo wax badan waxaan hubaa wax kastoon isku dayo inaan sheegaa inaysan ahayn dhibic yar hase yeeshee dhibicdaas yar baan isleenahay bal inaan gudbino ayaan isku dayay sidaad ogtihiin ee aan qur-aankeenna aad ka akhriseen ee ilaahay noo tabiyey aabbaheen nebi aadan baa la yidhaahdaa bini aadamka marka nebi aadam laba marxaladood buu soo maray abuuristiisu marxalad dhoobo laga abuuray oo laga shaqaynayey in la qorqoro suuraddan bini aadamka iyo marxalad markii taa la dhammeeyey wanufiqa fiihi min ruuxii ilaahay uu geliyey marxaladdii koowaad malaa'igta lama odhan u sujuuda lama odhan aqoontaada sheeg wax sheeg aadam wacallama aadama alasmaa'a kullaha bali lama odhan ee markii la dhammaystiray ayuu noqday mas-uul xil qaadi kara mas-uul xil qaadi kara lala xisaabtami karo haddaba waxaan ka dhigay mas-uulka weyn caawa qeybta anigu aan ka shaqeeyo ayaa dadku waxay isku khaldaan laba shay qeyb luqadda ajnabiga waxaa lagu yaqaanaa nervous system nervous system maahan dareen qaade waxaa laga wadaa wixii bannaanka fariinkaaga keena ee dhaqdhaqaaqo dhan baa ku jira isagana waxbaa ka baxo waxbuu fuliyaa ya ee dareen ma soo qaadee wuu isna waxbuu fuliyaa gacantaan dhaqaajinaya dareenka ii keenay baa i dhaqaajinaya marka waxaa loo yaqaanaa nervous systemkan see buu ku abuurmay maxaase ka dhexeeya nervous systemku xaggee buu ka yimi muxuu yahay waxaan idiin sheegayaa nervous systemku waa 3 qaybood waa maskaxda iyo xangulaha iyo neerfayaasha dibadda aadaya oo xubin kastoo jirka ah gaaraya ama fariinha ka soo qaado ama shaqaha u diraye 3 qaybood weeye maskaxda xangulaha iyo neerfayaasha intuba waxay ka mid yihiin jismigii dhoobada ahaa intuba waxay ka mid yihiin jismigii dhoobada ah wax kastoo jismi dhoobada ka tirsan waxaa laga wadaa wixii aad taaban kartid ee qofkaanuu leeyahay haddaan ku taabto waa dhoobada jirkeedii wey haddaan inta ku jeexo wadnahaaga taabto waa dhoobadii haddaan calooshaada taabto waa dhoobadii haddaan maskaxda lafta furo oon taabto waa dhoobadii haddaan xangulaha dhabarka jabiyo waa dhoobadii wax allaala wixii la taaban karo waa abuuristii hore dhoobada wey waa qofkii dhoobada ahaa laakiin qofkan ma wadaan maskaxdaani ma wado waxaa wada qaybtii labaad ee ahayd ruuxan dhahno nafsadan dhahno qalbi aan dhahno su-aalaha ugu waaweyn ee ilaahay nabigeena weydiinayay la weydiin doono maxaan dhahay gaaladii weydiinayeen ayaa waxaa ku jirtay wayas'aluunaka can iruux qul iruux min cindi rabbi min amri rabbi wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliila macaa jirkan kale waad baran kartaan aqoon waad u yeelan kartaan laakiin ruuxa inaad barataan ood wax ka ogaataan aqoon uma yeelan kartaan ilaa qaliilan bal cilmi maanta haddaad dhakhaatiirta dunida baartaan intaas oo qaybood oo takhasusay u kala bixi mid ilkaha ku takhasusay mid indhaha ku takhasusay mid maqaarka ku takhasusay mid neerfaha ku takhasusay mid lafaha ku takhasusay mid dumar ku takhasusay dhammaantood waa qaybtii dhoobada ahayd dhammaantood waa qaybtii dhoobada waayo qaybta kale meel ay ku jirtaba cid garan kara ma jiro ma maskaxday fadhidaa ya xaggee bay jirkeenna xaggee bay ka fadhidaa qaybtaanna maamulaysa annagana maamulaysa marka qaybtaas horumarkeedu 1000 jeer buu ka gaaban yahay qaybta kale ee jirka dhakhaatiirta faraha badan ay wada qaateen ayuu ka gaaban yahay waayo waa waxaan la arkayn ee araggiisa lagu mala awaaliyo keliya calaamadaha dadka laga dhex arkayo keliya lagu awaaliyo saasuu u dhaqmayaa saasuu yidhi keliya
haddaan ku geliyo MRI scan qalab kasta lagu geliyo meel laga soo heliyo ma jirto ruux laakiin maskaxda waa la soo sawiraya wadnaha waa la soo sawiraya meel walba waa la soo sawiraya haddii dhig la qaado haddii wax kasta la qaado haddii dhacaan la qaado waa qaybtii jismiga haddaba si aan iskugu xiro ilaahay xamdinaqa uu kugu leeyahay aan ka bilowno adigu xageed ka timi aadan ka soko hooyada iyo aabbaha markay ku dhalayeen aabbaha ma meel jirkiisa kamida baad ku jirtay oo kayd ku ahayd oo markaas baa markii kulankii labada waalid dhaceen lagu waxay waxaan ii sheegayaa waxba maadahay hal shayna maadahay ee ilaahay baa warshad kuu sameeyey muuska cambaha caanaha lo'da intuu isku xirxiro oo ka sameeyo lulumooyin malaayiin ah oo habeenka kulanku markuu dhacayo intaasoo walaalahaya aad nasiib u yeelatay adigu ka keliyoo la kulmay baadkii hooyada marka maad jirin ciiddaa lagaasu sameeyey cambahan muuskan caanahan waxaanad cunaysid ayay ka soo sameeyeen macnaha warshadaheenu ka soo sameeyeen inay lulumo sameeyeen okay markay labadii sameeyeen hal unug ay sameeyeen oo tarankii bilaabmay usbuucyo kadib qofkii bini aadamka ahaa wuxuu u kala baxayaa saddex maro saddex xuub oo kale wax maray ayuu u kala baxay xuub loo yaqaano xuubka gudaha xuub loo yaqaano xuubka dhexe iyo xuub loo yaqaano xuubka sare ectoderm xuubabkaas waxaa ku kala abtirsan doona qaybaha jirkeen xuub walbaba waxaa ku abtirsanaya qayb jirkeenna ka mida ayay abuuraysa xuubka sare oo ectodermi loo yaqaan waxaa ka dhasha laba xubnood oo jirkeennaba ka dhasha oy walaalo ku yihiin oo isku aabba ku yihiin waa nervous systemkaan idiin sheegaya maskaxda iyo xangullihii waxaasoo qayb ah iyo maqaarka iyo maskaxdu waa walaalo isku hal xub bay ka yimaad jirkeenna meesha ugu badan malaha ee dareemada ugu badan ay tagaan kana soo qaadaan waa maqaarka mararka qaarkood qur-aanka waxaad ku maqlaysaa ilaahay oo u goodinaya gaalada oo le naarta markaan idin gelino inta maqaarku markuu gubtaan idinku celinaan maqaar kale idin soo samayno si xanuunka loo taabsiyo maqaarka buu ilaahay isticmaala maaragta haragga haddaba nervous systemkii ayaan gelin waxaa mucjiso ah hal unug oo gudihiisa wixii ku jiray ay wax kooban ahaayeen ayaa intaa uu tarmayo mar walba wuxuu dhalayaa unug kale oo abtirsiyo kale samaynaya almucjisooyinka ilaahay wuxuu dhalayaa koox dhan oo maqaarka samayn doonta koox dhan oo lafaha samayn doonta koox dhan oo nervous systemka samayn doonta koox dhan saas buu jirkeenni uu u abuurmaya ilaa aada buuxsantideed qofkii noqotay waa lagu qurxinaya waa lagu dhisaya rabbanaa maa khalaqta hada baadila subxaanaka faqina cadaab annaar qofkii caqli ulul albaab ilaahay marar badan buu soo qaataa ereyada ah adiga lagu tusayo haddaad wax fiifiirin lahayd inay kugu filan tahay nafsadaada intaadan meelo kaleba aadin ya intaadan aadin xidigaha iyo magaciisiiga inaad adigu is eegtid saad u abuuran tahay saad u timid saad u haddaba waxaan ka hadli doonaa marka dambe qaybta ruux waayo aqoon badan ba uma lihi waa taa ilaahay yihi wamaa utiitum min alcilmi ilaa qaliila
laakiin qaybta lagu leeyahay dhakhtarku wuu ku xeel dheer yahay waa qaybtan dhoobada wey aan ka hadlayno ee jismiga bini aadamku ka abuurmay wey qaybtaas waxay u kala baxdaan marka hore laba qaybood qayb loo yaqaano qaybta dhexe central iyo qaybta loo yaqaano dibadu bax qaybta loo yaqaano dhexe centralku waa qaybta ay ku jiraan unugyada shaqada qabanaya unugyada shaqada qabanaya neuron baa loo yaqaana unugyada shaqada qabanaya waa halka ay fadhiyaan sida awgeed ilaahay laf buu qaadayoo uu ku xiray madaxii maskaxda waayo waxaa ku jira unugyadii qaaliga xambulihii buu arkay soo qaadoo laf buu ku xiray xambulihiina intaa wuxuu ka ilaalinayaa arraxmaan marka wuxuu ka ilaalinayaa oo adiga lagu ilaaliya waxaa lagugu xirxiray si aanay kaaga dhaawacmin maskaxda unugyadeeda wax qabanaya iyo xididadeeda iyo neerfayaasha qaybta dibadda aadaysa waxay tegaysaa neerfayaal baa loo yaqaana qaybtaas qaybtaa dibadda tegaysa waxay tegaysaa xubin kastoo jirka ah hadday maqaar tahay hadday muruq tahay hadday laf tahay hadday calool tahay hadday wadno tahay hadday waxa ka shaqaysiinaya macluumaadna ka soo qaadaya waa neerfayaasha laakiin xaggeeba u soo qaadayaan macluumaadka xaggee awaamirtu ka baxaysaa waa qaybtii dhexe balan soo qaadno maskaxda haddana sida loo sii ilaaliyo hoy waxaa looga dhigay laf haddaad qaabka lafta ay u samaysan tahay eegtay aqal soomaali bay ogta aqal soomaali bay u ogtaa lagama dhigin murabbac lagama dhigin triangle lagama dhigin wax kale waxaa saa looga dhigay intaas oo nabar adigoo aadan ogeyn ayaa ka fakanaya oo hadday saa ahaan lahayd ku dhici lahay oo jebin laha lafta haddaa ka gudubtid bal xuubka sare iska dhaaf waxaa lagu xiray xuub waxaa lagu xijiyey biyo xuubab dhexyaacaya waxaa iyada lagu daboolo maro looga dhigay xuub kale biyahaas maxay yihiin maxay taraan biyuhu hilibka maskaxda oo weyn gudihiisu waa duleelaa biyahan ka buuxaa inaanay isku soo dhish oran ayuu taray maxaa loo geliyey biyaha biyahani marka ay hoosna yimaadeen dhexdana yimaadeen lafaha hoose ay ku fadhido maskaxdu madaxeenna kor waa ka siman yahay laakiin haddaad hoostiisa eegtid waa wada lafa taataagan sidii torreeye markaa biyaa la duldhigay lafihii oo dhan la buuxiyey doon baa laga dhigay biyaha ku dhex sabaynaysa miisaankeedii kaloo ku cuslaan lahaa biyahan xataa laftigeedana dhexdaa biyo kale laga geliyay si qaar kalena loo sii kala fududeeyo biyahaasi meel bay ka dhalanayaan meel bay ka baxayaan maskaxdoo dhan bay wareegayaan 24 saac kombyuutarkaas kululaanaya ayay qaboojinayaan ayay macdan u wadaan adigu maad ogid intaana ilaah baa ku ilaashanaya waxaa kuu samaynaya weliba waad ku kibraysaa haddaad weliba adoo intaad aragteen ku yidhi waxba meelna kama ad imaan ayaad kibraysaa saana lagu ilaalinayo lagu ilaashanayo haddaad aragtaan biyahaasi markay wareegayaan hadday meel ka xirmaan hadday caruur yihiin madaxii baa biyihii kala shumaye weynaanaya weydinka arkay caruuraha qaarkood madaxa fuusta la ekaaday maxaa dhacay biyihii baa waddadii ka xumaatay ka istaagay haddii qof laftiisu xirantay ay xirmaanna
madaxii laftiiba maskaxdii ciriiri noqonaysa biyihii ciriiri noqonaysa haddaan si dhaqsaa biyaha waddo loogu furina maskaxdii bay dilayaan maskaxda waxay ka kooban tahay meel ay fadhiyaan goobo ay fadhiyaan jananada wax maamulaya fartaan isma dhaqaajin karto haddaan janankaani oran dhaqdhaqaaq isma dhaqaajin karto marka goobo ayay jananadu fadhiyaan goobta hadalka halkaasaa laga xukumaa goobta maqalka halkaasaa laga xukumaa goobta dhadhanka halkaasaa laga xukumaa goobta aragga halkaasaa laga xukumaa wax allaala waxaad shaqo dareentid ama aad qabatid halkaasaa laga kala xukumaa goobahaas askartaasi waxay leeyihiin waayiro yaryar oo dhuudhuuban oo ka soo baxaya oo aadaya neerbayaashii aadaya waayiradaas ilaahay su kuu xanaanaynayo sida kuwan bini aadamkaba korontada loogu daboolay caagga loogu daboolay maxaa caagga loogu daboolay haddaan taabto dabkiiba ay qabsan lahaa ayuu ku daboolay 24 saac ama fakar ama hadal ama soco shaqadaas baa socoto waayiradaas maraysa haddii dhaawac yar gaaro waayirkii bal iska dhaaf janankii haddii jananka dhaawac gaaro lugtiiyo gacantii halkuu xukumay baa curyaamaysa oo idinka maqlay hebel vaalig baa ku dhacay vaaligu waxaa weeye goobtii gacanta laga xukumay buu ku dhuftay xididka ka xiray hebel hadalkii baa gam ku yidhi goobtii hadalka laga xukumay buu ku dhacay nabarka ama xabaddii haddii xabad lagu dhuftay kaga dhacay ama intuu daar ka soo dhacay bay kaga dhacday qaybtii lugta xukuntay ama qaybtii kaadida xukuntay haddaanu jananada dhaawacin ee uu dhaawaco xididadii isku dhowaa ayaa markay shaqada qabanayaan ee wareegayaan marmar istaabanaya maxaa dhacaya xanuunkaad u taqaanaan suuxidda hebel waa suuxaa halkaa ninkii taagna aad maqlaysaa geb korontadii baa haysata intaa ilaahay waxooba buu kugu xirxiray kugu habeynay si shaqadaada u kala socoto alxamdulillahna waa lagaa leeyahay alxamdulilah keliya ayaa lagaa leeyahay xubin walba haddaad gaarkeeda u qaadatid keligeed ayaa aayada siday u shaqaynayso xubin walba siday u shaqaynayso carabkaani ma hadlo carabku gacantan buu la mid yahay midig haddii carabku hadlo gacantuba waa hadashaa waayo carabkana waxaa loo yaqaanaa oraah gacantana waxaa loo yaqaanaa qoraal labaduba waa hadlaa marka waxaas oo kayd ah oo meel yaal balan ka soo qabanno maskaxda gudaha ku jirta haddana qaybay u kala baxdo iyadoo kooban waxaa loo kala yaqaanaa maskaxda weyn iyo maskaxda yar maskaxda weyn waa taas la shaqaynaysa garaadkaaga gacanta qaad hadal yeel dareenkaaga ogaanshahaaga la shaqaynaysa iyo waxaadan ogeyn maskaxda yar ee qadaadka xigtana waxay la shaqaysaa ilaahay wuxuu kugu abuuray dhulkuna wuxuu leeyahay miisaan soo jiidasho ee gravity haddaan in yar lexdo gravity-ga ay jiidana way ridaysa haddaad sawir qaadid inan kubad cayaaraya haddaad qaadid sawir ka qaadid waxaad arkaysaa isagoo madaxa ku tuuraya kubadda 19 meelood buu iska jijabinayaa
19 meelood si uu kubadda madaxa ugu dhufto oo muxuu dhici waayey dhul samaduu marayaa muxuu dhici waayey maskaxda yar baa xubin kasta oo muruqa oo jirka ah waxay geynaysaa inaanu dhicin haddii xagga uu dhici lahaa muruq kale xagga xiga ayay ka shaqaysanaysaa soo celinaysaa soo qabanaysaa marka waadiga iska laafiyoonaya waadiga gacmaha maanta oo dhan wax ka shaqaynaya waadiga adoon ogeyn hadda mesela gaari baad wadaa ama teeb baad garaacaysaa computer baad garaacaysaa maskaxda weyn garashaday leedahay wax inay qorto laakiin markii computerka lagu baro tayar baa ku filan inay gacmaha iyadoon fakarba kugu jira tayar baa ku filan automatic inay u wado shaqadii gaariga aanu la sheekaysanaya shiiqa maanta oo dhan ayaan gaariga iska wadaya ilaahna wuxuu yidhi 2 qalbi qofka uma aan samayn 2 qof kama dhigin ma ahane tan baa record garaynaysa wixii noqosho u baahan wax kastoo noqosho u baahan inanka kubadda iyo adigu haddaan training loo samayn adigu waad dhacaysaa kubadda markaa istiraadid madaxa la aad waad dhacaysaa laakiin isagu training markii maskaxda yareed loo sameeyey wuu qayba meel kastoo isku tuuro dhan kastoo isku tuuro wuxuu og yahay jirkiisu inuu ka adag yahay jirkiisa waxaa marka ay u kala baxaan qayb dareen qaadayaasha iyo qayb dhaqdhaqaaq ama shaqo fulin qaybta dareenku waxay u kala baxdaa qayb dareenkeeda aad adigu garanaysid qof baa i taabtay anigu waan ogahay dareen waa dareenaan ogahay laakiin waxaa jira 1 milyan oo dareen oo kugu socdo naftaada badbaadinaya oo adigu aadan ogeyn haddii masyar luta kaa taabto anigoo la sheekaysanaya sheekh anoon ogeyn ayuu jirkaygu dareenkii xataa maskaxda la gaarsiin maayo xangulaha laga soo celinaya amarka lugta la soo carar lugta la soo carar maskax inaan fakero ma masbaa ma waxaan baa layma ogola waa badbaadadaada haddaan taabashadu jirin haddaan xanuunku jirin maqaarkaagu xanuunsanayn haddaan kulayl iyo qabow aadan dareemayn noloshu kuma suurtoodeen xataa jacayl kuma yimaadeen hooyadu ilmaha maaragtay ay dhasho haddaan intaa u soo marin jacayl kuma yimaadeen jacaylka iyo xanuunku waa wada socdaan iyo jiritaan marka qaybta wax og waa qaybta kaadi baa ku qabatay marka adigu kaadida ma ogid iskama adkeenin inay ku qabatee dareenkii aadan ogeyn baa ku ogeysiiyey markuu xad gaartay ayaad dareentay kaadi adiguna waxaad gaartay go-aankii ahaa soo kaadi garashadii baad la timi qaybtii laga xukumay maskaxda sare ee garashada weyneyd ayaad isticmaalaysaa marka waxaa jira dareen 5 ama 6 xubnood ee muhiimka ah iyakuna waxaa la yidhaha dareemada gaarka ah indhaha dhegaha sanka maxaan dhahaa dhadhanka waxaas oo mid walba haddaad raacdid sida uu u shaqaynayo aad ku dhammaanaysid rabbanaa maa khalaqta haadaa baadilan subxaanaka faqina cadaaba annaar aad ku dhammaanaysid hubaal aad ku dhammaanaysid marka haddaan guud ahaan kaga haro ma ahan keliya dheecaan kastoo jirka laga sii deynayo adigu maad ogid ishaadaasoo keliya arag baad u haysataa inaad u isticmaalaysid laakiin waa lagu ilaaliya adiguna isma ogid waad libiqsanaysaa adoon isogeyn intaas libiqsiga siigadii iyo qalaylkii iyo laga tiraya way ilmeynaysaa ilmo yar bay samaynaysaa waa la mayraya wixii siga yar ku dhacay iftiin xoog la ku dhacayo adoon ogeyn baa bu'da madow ee yarta ah la xirayaa si aan muraayadu kaaga guban adigu ma ogid
ilaah baa ku ilaashanaya ya raxmaddiisaad ku joogtaa marka wax walba isagaa isku xil saaray inuu kuu ilaaliyo ya oo ku hagaajiyo si aad u noqotid wax perfect ah oo aayaadka markii laga hadlayo mid walba ay ku geyso bini aadan ma samayn karo yaa sameeyey waxaa yaa sameeyey waa su-aasha imaanaysa waxaan imaanaysa haddaan kaga gudbo marka cishii baa dhow qeybtii ruuxa waan soo koobayahay qaybtii ruuxa xanuuno un baa la yidhaahdaa xanuunadaas ruuxay ka dhashaan maxaa dhacay oo maxaa loo yihi ruuxay ka dhashaan waayo markii la baaray dhiig la baaray dhacaan la baaray qalab la baaray kombyuutaradii ugu dambeeye la baaray meel jismigii dhoobada ahaa ka xanuunsan yahay baa la waa ya meel allaala meel uu ka xanuunsan yahay ayaa la waa qofkii waa dhan yahay adiga kaa caafimaad badan gidaarkaasuu rujinaya wax kastuu kaaga xoog weyn yahay haddana waddaduu taagan yahay dharkiibuu dhigtay waa qaawan yahay dadka dhexdoodiibuu qaawan yahay waad baartay maskax burbursan ma jirto waad baartay ya qofkii baad u timid qulub buu ku jiraa way isxiray dunidii buu iska xiray qam xubin amarkii qaadanaysa male gebigeedii buu waa qafilmay qofkii muruguu ku urur iyo madow wax noocaasa iyo calaamado noocaasa un mooyaane sida loo taaban karo suuxidda haddaan qalab ku saaro meeshii dhaawacu kaaga yaalayay ee xididadu iska taabanayeen inaan ku tuso ya ama bura kaaga soo baxday haddaa shil gashidoo dhiig kugu furmo inaan ku tuso meeshii dhiigku kaaga furmay in la qalo iyada meel qalab loo isticmaalo ya oo aan ahayn waxaaba baaritaankeeda go-aankeeduba yahay markaad baartid haddaad wax weyday jismigan ku dhacay iska dhe ruuxa hadda ogow maalin walbaba bini aadamku markuu aqoontiisu kor u sii kacdana ya waxaa la helaa xanuuno dadka waala markii dambe xanuuno dadka qulub ku ridi xanuuno aqoontii baa soo saartay maaragtay waxyaalo fara badan oo kale soo saartay qaybtan ruux inta yar ee kolley anigu aan ka sheegi karaa waxaa weeye waa qaybta qofkan maamusha maala hadda ta waxaan idhi 3 qaybood kaada ay qabatay anigu maan ogeyn waan dareemay waxaan la imid garaadkii ahaa kaadaa ku haysee soo kaadi waa qaybtii garashada laakiin laba ii furan sida xoolaha hortiina inaan ku kaadiyo iyo inaan meel asturan doonto qaybtaa xishoodka iyo yaxyaxa iyo garaadka iyo talada xukunta wey ruux ee aan kuu ogolaanayn ya halkaa ku kaadi ku ogolaan waa qaybta hagaysa inta kale ee ruuxa qofkaaga hagaysa hooyada waxaasay kaa mudanta aabbaha waxaasuu kaa mudan yahay bini aadamku waxaasuu kaa mudan yahay ilaahay waxaasuu kaa mudan yahay xooluhu waxaasay kaa mudan yihiin wax kaste oo u baahan damiir iyo talo iyo maxaan dhaha wanaag iyo xumaan laysku dhelitirayo ruuxa iskale maskaxdu marka arrimaha kama tariso iyadu waa gaari la istaargaraynayo ya waa gaari la istaargaraynayo ficil waxaa jira haddaad si u samaysid kula fool xumaanaya haddaad si u samaysidna kula wanaag noqonaya hadda matal ka soo qabo dhakhtar baad u tagtay adigu baasiir baad ka cabatay ya dhakhtarkii baad tiri niyow xanuunkaas ay xanuunkaas bahay dhakhtarkii wuxuu ku yidhi dharka iska bixiyo foorarso halka haysta waad yeeshay
ya wuu dhamaystay wuxuu ku yidhi wax ma qabta ama waxba qabta laakiin isla dhakhtarkii hadduu ku yidhaha dadka dhexdooda tagoo dharka iska bixi ka yeeli maysa waayo maxaa labadan shay labadaba isagaa ku amray labadaba isagaa ku amray labadaba maskaxdu dharka way bixin taqaanaa laakiin mid waxaa la socda damiirkaan idin sheegaya baa la socda xisaabtankii baa la socda waxaani ma mudna iyo waa mudan yihiin baa la socda marka qaybtaa ku dheeraan maayo qaybtii kale ee koobnaydna waxaan kaga soo ururinaya waxa wahay jismigeenna meel allaale qaybtii baan usoo noqonayaa ahayd dhoobadee jismigeenna ma jiro xubin magac leh oo aan neerva imaan ama neerva ka tegin dhammaan waxaasoo dareenana ee socda iyo dareen soo degayana waxaa loo wadaa qaybo kala sallaansallaana qaar waxaa lagu xallinayaa meel ka sokaysa maskaxda oo aniga ku lahaa waxba ay taabtay oo waan lugtii baan la carar maskaxdii aanan aadin qaar kale waxaa lagu xallinayaa meel xangullaha ka sarrayso maskaxda gaarin qaarna waxaa lagu xallinayaa maskaxda oo dareenkeedii joogo oo taladii ku siinaysa saa yeel saa yeel saa yeel saa yeel indhahan waxay ka mid yihiin difaaca ka sokow garashada iyo aqoonta iyo waxa kale ay ku siinayaan ka sokow difaacay ka mid yihiin waayo markaad bahalka aragtid maqashid urisid ayaa dareenka ku gelaya maaragtay inaad nafsadaada badbaadisid marka adoo dhan waxaad ka samaysan tahay cid la xanaanaysanayo oo la korinayo oo la koolkoolinayo oo loo roon yahay ya oo cid kale oo kuu qaban karta intaana aanay jirin ilaah baa mahad wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وجزاك الله خيرا أرجو المنزل دكتوركم وهو إن تصير اسمك إلهي يا رحيم اسمك إلهي يا رحمن اسمك إلهي يا لطيف اسمك إلهي يا رؤوف اسمك إلهي حنان أيوه إن دلقي قرشي إلهينا عيالنا الله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون إلهي تبارك وتعالى إن بضوار المضور فقعد الروح يو أولاد مؤمن إن شغل ضميرك سنوية وحكوينت بدائم الأخير ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار دكتور كليا هي مقال كليا هي مسكحة سيدة يسبح إليه أي فقرينت الرسول بالناس وأصبح كير سكن تسوح كير أي مركبة صوت بعض مقلسة صوت كاس isla markiiba wuxuu ku odhanaya ribaa caynaysa sawd baad maqlaysaa wuxuay kuu kala saaraysaa ma xayawaan baa mise waa bini aadam ayay markiiba kala garanaysa waa isla dhegti dhegtan sawdka ku soo dhacay waa hirar yaryaroo socda oono durbaankeeda cadkeeda ka samaysa xoogkeeda garaacaya markaasuu sawd baa kugu soo dhacay sawd kasta oo yaqaana wuxuu waa hebel baa halkaa ka hadlaya toban qof haddaad halkaa joojiso sawdkooda kala taqaano oo hal eray isku mid ah ay ku wada hadlaan mana arkaysid dhammaan way kuu kala sheegaysaa kaalay bay wada yidhaahdeen isku xarfay ka koobayn erayada ku dhawaaqeen haddana kaalayna ay ku wada dhawaaqeen mid walba dhadhan gooniyi kuu samaynaya kaalaydii 20 qof ee sawdkooda taqaana ay ku hadleen indhahaana wax allaala waxay arkeen way rikoodgaleen meel bay ku xaraysanayaan markaan saa idiin eego aragtideeda markaan markiiba eego waxay
waxay tarjumaysaa muuqaalka buurjaga waa maxamed, muuqaalka buurjaga waa daahir, muuqaalka buurjaga waa hebelkii kale, muuqaalka buurjaga anu horubaan arag bay maskaxda ku oranaysaa. waa qof kugu cusub qofkan buurjaga bay ku oranaysaa. mararka qaarkood qofaad waa hore istaqaaneen baad arkaysaa, markaasaad fakeraysaa qaybta hoose ee dambe ee boolowday baad ka soo dhufanaysaa. markaas waa hebelkii 30 sano ka hore istaqaaneen meel bay ku haysatay. guryahan aynu tegayno wadooyinka iyo halkii kala dhacdaan iyo gurigaagu halkuu ku yaalo qayb baa kuu xifdisan. haddaana qaybtaas ku xifdi lahayn aqalkii kugu soo hagay waa iska geli lahayd. aqalkii kugu soo hagay hooyadkii badan ee dulca markii aynu teendhooyinka dhisanay habeenkii inta qaybo ka xisay hebeelo oo wada teendhaca ma kala taqaan. waxaad arkaysaa adoo teendho kale iska gala war maxaad ahay meel gurigeygii ahayn mee gurigeygii maaha. marka ilaahay wuxuu siiyey inta aada nooshahay qayb xifdida oo kuu kala saarta muuqaalada, kuu kala saarta urta, kuu kala saarta midabada. inta inaa ishaada arkaysa wada midab ah mid walba qaybay ku xifdiyaysaa. carabkaagu inta noocoo dhadhamiyo haddii dhadhan kasta hal carab lagu samayn lahaa ka waran halkii kala qabsanaya carabadu wada carabbaa noqonaya. hadday indhaha qayb walba il gaaro loo samayn lahaa wejigaa wada ilku noqon lahaa. dhagaha aada arkaysaa haddii sawd kasta dhagaara la siin lahaa intee ilayba mashquul lahaa. marka dictoorkana waxbaad xasuusiyey hal erey bay noo odhan doon. marka baaraka allahu fiikum ilaahay cayaari noola hakuran garashada inagu isgaranay baynu ilaahay ku garanaynaa. dictoorkana eryar baan ku celinaya. waxaan xasuustay keliya araggan iyo maqalkan iyo waxaan kuwa dhoobada ku talagala inay jiraan arag iyo maqal kale oon kuwaan aan arkaysaan ahay. qaybtii ruux yaa qaybtii maaragtay marka ilaahay kula yahay suma ummi waa indhala yihiin waa dhegala yihiin ma aha in indhuhu dam yihiin oo dhugu dam yihiin oo yaa may faatay macnaha. xataa qofka waa sheeko soo qabo isagoo dadkaani joogaan oo keligiisa buu sheekooyin maqlaya aan dadkeenaani maqlay may garata macnaha. wuxuu arki karaa waxaan indhaheenaani aanay arkin buu arki karaa yaa asraallahu ayuu arki karaa. marka ku talagala in labadan qayboodoo qofka ay qaybta weyn ee wax qiimeyn karta arag ahaan qiimeyn karta wax tani waxay qiimeynaysaa keliya waa waxaan dhulka keliya. laakiin waxaa qiimeynaya wixii xikmad leh waa indhaha kale wey waa dhegaha kale wey ya. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waa midaas uu sheekhu sheegay macnuhu wuxuu tilmaamaya oo aayadda qur-aanka ilaahay leeyahay innaha laa tacma al-absaar walaakin tacma alquluubu allatii fi suduur. halka laga indhabeelaa maaha indhaha keliya indhabala-aantu waa markuu damiirku damiirku hadduu baktiyo hadduu dufanaadis yahay daliilku hortiisa yahay waxaa kaga beegan daah dadkuna badi waa sidaas. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. jimcaha dambe biidni illaahi tacaala waxaa martay inoo ah dhakhtarkii wadnaha